dugaag lagu eriyaa dadka yagoo isku duubniba cadow lagu digshaa isku duubniba dugsi qarannim iyo dowlad lagu hataa dadka yagoo isku duubniba kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan halkani waa xogta suuqa media daawadayaal ku soo dhawaada qormo kooban oo xambaarsan xikmad aad u xeel dheer oo caawa Arbacada taariikhdu tahay 17 bishii koobaad 2023 aan idinkugu talagalnay qormadeenan oo ah dhextaal aan ugu talagalnay daawadayaasha xogta suuqa media oo ahaan doonta toddobaadle waxa aynu diiradda ku saari doonaa hadba waxyaabaha ugu xiisaha badan ee bulshadeena aan ugu talagalnay yoolka fog kan dhexe iyo kii aynu ka soo gudubnay cinwaanka qormadeena oo aan ugu magac darnay dameerku in la caayo mooyee isagu ma caytamo sababtu maxay tahay orordaalun iyo dugaag lagu eriyaa lagu digshaa isku duubniba dugsi qarannim iyo dowlad lagu hataa dadka yagoo isku duubniba sida aynu ognahay dameerku wuxuu ka mid yahay dabjoogta bini'aadamku xanaanaysto inta badan dushiisa ayaa loo adeegsadaa in waxyaabaha gacan qabsiga ah ee aadka u culus oo bini'aadamku qaadi karin la saaraa laakiin dabjoogta intooda kale waa ka duwan yahay oo waa la caayaa isaga iyo qofkii adeegsada marka laga hadlayo dhaqanka Soomaaliyeed waayo waxyaabo xun oo isaga dhaqan u leeyahay baa jirta sidaas darteed baa loo caayaa tusaale mararka qaar isagoo raran oo culays saaran yahay ayaa wuxuu sameeyaa qaylo aad u daran iyo waliba si aan la filaynin rarka u tuuraa taasoo mararka qaar naftiisa halis gelisa sida in uu jabo iyo in xariga qoorta ugu xiran isagoo leh ka carar ayaa isagii isku sii giijiya halka qofka wata ee uu u rarnaa marka uu damco in uu badbaadiyo hantidiisii iyo dameerka uu leeyahayba dameerkii wuxuu milkiilihii ka horgeeyaa haraati uusan ka filaynin sidaas baa mararka qaar isagii dhaawac weyn ku soo gaaraa qofkii lahaana dhibaato ugu geystaa marka bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda muslimka hilibkiisa iyo caanihiisa ma isticmaalaan balse way rartaan oo kaliya maadaama faa'iido kale oo laga helo aysan jirin mid kale wuxuu u muuqdaa xoolaha la dhaqdo kuwooda ugu caqliga liita in uu yahay baa lagu qiyaasaa taas baa keenaysa in la caayo qof kasta oo rarta caadiyan xooluhu waxay leeyihiin xuquuq lahaansho mid guud iyo mid gaar ahaan dameeruhu marka ay ku cusub yihiin in la rarto aad bay u dhibaato badan yihiin waa la tababaraa dadka ku dheereeya tababaridooda waxay sameeyaan inta ay soo qabtaan bay lugta hore iyo tan dambe xarig gaaban kaga xiraan si aysan urdin ama u haraatinin kadibna waxay saaraan rar culus oo loogu talagalay sidaas bay u hogaamiyaan iyagoo marna diidaya in la hogaamiyo marna diidaya in gadaal laga maro oo la kahayo toddobaadii ayaa sidaas lagu wadayaa kadibna wuxuu joojiyaa haraatidii iyo boodboodkii sidaas buu ku noqdaa dameer la raran karo dameerkii la qabsan waaya ama tababarka qaadan waaya dadka iska leh waxay u adeegsadaan waxyaabo kale si ay iskaga gadaan iyo in dameer kale oo hore u tababarnaa ayay ku dhinac xiraan oo sidaas baa iyagoo isgarab socda mid kasta looga faa'iideystaa sababta aan u soo qaatay sheekada qormadan ayaa waxay tahay shakhsiyaad leh habdhaqanka noocan ah ayaa bulshada Soomaaliyeed ka degi laadahay dadkii noloshooda ka naxayay
bay mar walba la daba taagan yihiin been abuur, warxumo tashiil, abuurista nabadgelyo xumo, burburin dhaqaale, dhaqankii, diintii iyo guud ahaan qiyamkii ay lahayd bulshada Soomaaliyeed. sidaas darteed bulshada Soomaaliyeed waa in aysan ku kadsoobin dadka noocaas oo kale ah. laakiin anigoon jeclayn in aan si fiican u sharxo dadka dhaqanka dameeraha leh ee aan ka soo sheekeeyo, dadyowga caalamka waxaa u degsan shuruuc gaar ah oo iyaga lagu edbiyo, sida in xabsi sanado kala duwan leh loo diro, in gebi ahaanba la toogto, ama in dib loo tababaro oo dib iyagii loo adeegsado. laakiin waxaa su-aali ka taagan tahay, dadka dhaqanka dameeraha leh ma xuquuqda xoolaha ayay leeyihiin mise tan dadka? haddii aan aniga ku hormaro jawaabta su-aasha ayaa waxay tahay, dadkan waxay yeelanayaan xuquuqda xoolaha ee ma lahan kuwa bini'aadamka oo kale, sababtoo ah dadkan ficiladooda ayaa ka dhigaya ee ma ahan muuqaalkooda kore ee insaaniga ah. aan ku raaciye oraah Soomaaliyeed baa ahayd, dameeri rar bay ka carartaa, rarna way u oradaa, taasoo aan ula jeedo kuwa caqliga noocaa leh oo dadkooda inta ka carara dad kale uga sheekeeya maxay caqli iyo dhaqan dhaamaan dameeraha. hadda igow qaabka aan u hadlayo, su-aasha kuu weydiinayo yaysan kugu kicin xajiin ama ha ii qaadan qof aan kala garan, balse waxa aan sidaas u leeyahay ka dhagaysta ahaan adiga baaris ku samee, jawaabta saxda faallo ahaan inoogu reeb qaybta faallooyinka si dadka oo dhan uga faa'iidaystaan. diyaarintu waa Maxamed Macalin Cismaan, Allman, Minnesota, USA. Sarvai mele putana